daawadayaal fanaaniintii markaasi Soomaaliyeed guud ahaanba waxay isaga baxeen markaasi singalnimadii oo maalinba maalinta ka dambeysa mid ayaa ka baxaya. Fanaanka caanka ee lagu magacaabo Ismaaciil Cabdilaahi Cumar Ismaaciil Ark ayaa waxa uu guursaday gabadh markaasi aalada Facebook caanka oo lagu magacaabo Maryan Gaabo ama adoonti eebe. waa sida ay Facebook ku soo gasho waxayna kamid tahay dadka markaasi saaidka Facebook caanka uga dhaxa. Hadaba fanaanka caanka ee markaasi lagu magacaabo Ismaaciil Ark ayaa waxa uu meherkoodu ka dhacay Saaka, magaalada Muqdisho, caasimadda dalka Soomaaliya. Gabadhani ayaa waxay ku sugan tahay ama degan tahay cariga wadanka Mareykanka, gaar ahaan Minnesota. Halkaasi ayay fanaanka caanka Ismaaciil Ark iska soo calmadeen, waxaana meherkoodu ka dhacay magaalada Muqdisho. Gabadha halkan aad ka arkaysaan waa gabadh qurux Ilaahay ku manaystay, waxayna deegaan ahaan ka soo jeedaa dhulka Puntland, gaar ahaan magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Gabadhan Maryan ayaa waxaa la sheegay in horey nin markaasi caan ah isaguna u soo guursaday oo dhashay wiil. Fanaanka Ismaaciil Ark ayaa isaguna hore u soo guursaday oo wax soo dhalay isaguna. waa mid ka mid ah fanaaniinta loogu jecel yahay waqti xaadirkan aroosyada Muqdishona isagu ayaaba kala kiciya. Xoogay codkaygu waxa uu san yahay, fadlan iga raali noqda aan idin la kaftame. Ugu dambeyntii daawadayaal, fanaankan ayaa warkiisu waxa uu soo shaabaxay ka gadaal kadib markii xalay toole la shaaciyay in meherkooda uu ka dhacayo magaalada Muqdisho. ujeedada ugu weyn ee aan xogtan ula wadaagayno saaxiibada ku xidhan warbaahinta Hogol News ayaa waxay daaran tahay kadib marka dhacdooyinka ka dhaca miidiyaha iyo sidoo kale social media iyagoo turxaan baxsan ayaan halkan oo xaqiiq ah oo aan lagu laabanayn ayaan soo gelnay. Tusaale ahaan, warka hadda ama dhacdadan aan idiin sheegnay ee ku saabsan Ismaaciil Ark waa mid aan warkeedu soo laabanayn oo sidaan u sheegnay ayaa weeye oo isagoo tafaftiran ayaan warka soo gelinaa. Ugu dambeyntii saaxiib, mar kale waxaan idiin rajaynayaa inaad horta muuqaalka marka hore sii sheergaraysaan oo Soomaali Maxamed sii gaarsiisaan, maadaama fanaankani yahay fanaan Soomaaliyeed oo Ilaahay cod iyo wax kasta Ilaahay ku manaystay, oo waxaaba si fiican loo bartay 2 sano ka hor ilaa 1 sano ka hor. waxauna soo caanbaxay ka gadaal kadib markii magaalada Hargeysa la sheegay in lagu cansuriyeeyay maadaama uu ka soo jeedo magaalada Muqdisho, halkaas oo fanka guud ahaanba loogu diiday inuu galo markaasi kooxaha waaweyn sida Xidigaha Geeska iyo kuwa kaleba, kuwaas oo yidhi boos nagama banaana. balse maanta waa mid ka mid ah fanaaniinta ugu caansan geyga Soomaalida, waxaana la sheegay inuu soo qaaday hees caan baxday oo u qaaday madaxweynaha dalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ahayd hees cajiiba. halkan hadda aad ka maqlaysaan waana hees uu ku helay taageerayaal fara badan oo 4 beenujaha kala jooga. waa mahadsantii saaxiibayaal, waxaan u rajaynayaa inaad arooskan usoo hambaliyeysaan oo qaybta commentiska aad dhiig kaga keentaan hambalyada fanaankan Ismaaciil Ark iyo sidoo kale gabadhan uu guursaday ee Maryan. mahadsanidin. fadlan waxaan idinka codsanayaa YouTube-keena Hogol News iyo sidoo kale page-keena Cabdiweli Nadaara. YouTube-kana subscribe noo saartaan, page-kana follow iyo sidoo kale like. waad ku mahadsantihiin. fadlan waxaan idinka codsanayaa YouTube-keena Hogol News iyo sidoo kale page-keena Cabdiweli Nadaara. YouTube-kana subscribe noo saartaan, page-kana follow iyo sidoo kale like. waad ku mahadsantihiin. fadlan waxaan idinka codsanayaa YouTube-keena Hogol News iyo sidoo kale page-keena Cabdiweli Nadaara. YouTube-kana subscribe noo saartaan, page-kana follow iyo sidoo kale like. waad ku mahadsantihiin.